يوم الصوماليلاند waxaanu leenahay Ramadaan Kariim bisha barakeysan Ilaahay khayrkeedana siiyo awlaadana inaga qaboojiyo taa tukaraq iyo taa elef weynba xalay waxa madaxweynuhu isugu yeeray dadkii dalka soo xukumay madaxda ka soo noqday iyo xisaabta qaranka iyo talaqabeenkii aad baan ugu mahadnaqaynaa isugu yeerka isugu ka yeeray uu tirana weydiiyay aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waxaanu jeclahay arrin sunna ah noqoto ay saa ku socoto waa laba arrimood mid waxa weeye waa arrinta elef weyn arrinta elef weyn mas'uuliyadeeda waxa la xukuumadda dadka shacabka iyo odayaasha iyo cayaanta iyo culimadu iyo annaguba wixii ay noo tilmaamaan ay yiraahdaan la qabta diyaar baan u nahay laakiin sadde mas'uuliyadeeda iyo go'aamadeeda iyo fulintoodaba xukuumadda leh annaguna waxa la yiraahdaa wixii ay nagala qabta ay rool noogu sameeyaan mar walba diyaar baan u nahay inaanu gacan dhaafno ayaanu diidaynay laakiin maanta haday naga codsadeen in wax kala qabano diyaar baan u nahay arrintaas waa dhiigbax qaranka ay ceeb ku tahay ummadda kala qaybinaysaa ifii aakhirada waa lagu sheegayaa marka arrintaana iyana waxaanu jecelahay xalay madaxweynuhu warbixin naga siiyay tallaabooyin wanaagsan baa la qaaday tallaabooyinkaas inay dhammaystirmaan oo mira dhalaan Ilaahay baan ku rajaynaynaa waxa timi arrintan dagaaladan xaggan ka soo cusboonaaday waxa Soomaaliya mar dagaal doonayso marnaba dagaal diyaar ma maamulka Puntland iyo dawladda Soomaaliya iyo Somaliland toona dagaal ku dhismayaan waxay ku dhismayaan nabad hawlo culus baa dhamaantood sugaya hawlihii qaranka la qaban lahaa waxa laga jeesto dagaal aan natiijo laga gaarin oo soo qaadaan mar walba oo aanay waxba ka bedeli karin xuduudii oo aanay statuskii Soomaaliland wax ka bedeli karin laakiin labadoodaba ka jeedinaya hawlihii ay u qaban lahaayeen dadkooda iyo dalkooda dagaalkan dagaal qabiil maaha dadka qaar ayaan loogu sawirin dagaal qabiilun yahay dagaal qabiil maaha tukaraq iyo xuduudeena waxa difaacaya dadkii deegaanka u dhashay deegaanka dadkii lahaa ayaa u diyaara oo difaacaya inaguna ku taakuleynayna reer laascaanood baa u dagaalamaya difaacaya reer tukaraq baa u dagaalamaya reer xudun baa u dagaalamaya reer talax baa u dagaalamaya reer buuqad baa u dagaalamaya marka dagaal laba qabiila maaha sidaan loo arko waxa weeye Somaliland mar walba diyaar waxay u tahay inay iyadu istifaacado aanay dagaal qaadin garow waxa la yiraahdo naga yaala ma jirto niman ku socdo ma dhihin mana wada hayno waxaanu caalamkana ka rajaynaynaa in la xakameeyo nimanka soo duulaya arrimaha Soomaaliya gacanta waxa ku haya United Nations gacanta ku haysa United Nations ku waa inay arrinta ay ku baraarugtaa aanay oran laba qolo isdilaayo qolada soo duulaysa arrinta u sheegta Somaliland mar walba waxa diyaar u tahay oo ku garab taagan anagu difaaca xuduudda iyo qarankaba ciidamadeena iyo xukuumadda waan ku garab taaganahay taakulaan la daba taaganahay aydaad baan la taaganahay xukuumaddan waxaan ku cadsanaynaa marka walaal soo kala yimaadaan inaan nagala jeesino sidii xalay baan loogu yeeray arrintaas ay noqoto arrin rasmi ah oo laga wada hadlo oo laga wada hawlgalo nabad baan ku baaqaynaa anagu dagaalkaasi wuxuu saameyn ku yeelanayaa oo dibka weyn gaarsiinaya dadka deegaanka oo maanta barakacay iyo rabaan soo galayso oo maanta meel ku sugan ciidanada weyn marka waxaanu leenahay taan ha lagu baraagugsanaado oo dadka deegaanka barakacay ee dagaalku dhibaatada u keenay aynu tusno inagu inaynu uga damqasho roonahay kuwa hayb ku raadinaya kuwa haybta ku raadinaya inaynu uga damqasho roonahay oo maanta baa naga muuqato sidii dadka loogu gurman lahaa dagaalkan ma hasan ii sheegay waxa dagaal qabiil maaha waa maamulkii Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland labadaas oo wada socda weeye labadana waxaanu sheegaynaa war dagaal ku dhismaysan hawlaha idin yaala hawlaha ka jeesanina Soomaaliland ku mashquulina waxaanu jecelahay xuduudkaasi inuu xuduud nabadgelyo noqdo waxaanu jecelahay xuduudkaasi inuu xuduud ganacsi noqdo waxaanu jecelahay xuduudkaasi xuduud la isaga gudbo inuu noqdo waxaanu jecelahay xuduudkaasi xuduud labada dal iyo labada dad si soo dhaweeya Puntland dadka kale oo iska xigna Soomaaliya kale dal iyo dad baynu wadaagnaa dhaqan baynu wadaagnaa marka waxaanu jecelahay inaan taay loobine inaga ka xigna ka koonfur joogay inay qadariyaan markaa walaalnimadeena iyo dirisnimadeeda oo inuu wada qabsano oo inuu iskaashano oo xuduudkaasi noqdo xuduud la mahadiyay oo ganacsigu ka socdo
oo waxbarashadu ka socoto oo dadku isu socdo oo la isdhex galo oo gobolkaasoo la culayska saaran labada dhinac ka saaranna ilaahay ka fududeeyo ka dulqaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.